warqad furan oo ka soo baxday agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin ayaa waxaa qiraal looga sameeyey sidoo kalena lagu iftiimiyey dabacado badan oo dhinaca siyaasadda ah oo aanay dadku ka ogeyn madaxweynaha Soomaaliya ee imika xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana loo jeediyay talooyin qodobaysan oo ku aadan sida uu ula macaamili karo arrinta imika taagan Ethiopia oo uu maamulka Somaliland u saxay dhul badeed la sheegay in ay saldhig ka samaysanayso sidoo kalena ay iyadu afkeeda ka sheegtay in ay dekadna ka dhisan karto waxa uu Fahad Yaasiin qoraalkiisa ku bilaabay madaxweyne darbaaxo rag bay kugu dirtaa ee kaama dhiciso madana madaxweyne aqoonta aan ku leeyahay waxaan si buuxda u oran karaa inuu dhabka yahay dareenkaada iyo khudbadahaaga kala duwan ee aad jeedisay waxaan kaloo hubaa inay runka tahay caadifadaasi marqaati ayaan u ahay muddo xileedkaadii koowaad in damac kasta lagu sheegay si aad tanaasul uga samayso qodobo taabanayay dhulka iyo badda Soomaaliya maantana kalsooni taa lamida waan ku qabaa inaadan saxiixaynin wax taabanaya gobonimada qaranka madana madaxweyne aqoonta kale ee aan ku leeyahay waxay tahay inaad si saa'ida gaabis u tahay go'aanadaaduna jilicsan yihiin culayska khudbadahaaga iyo cagajiidka tallaabo qaadkaagana isma laha Soomaalidu waxay ku mahmahdaa darbaaxo rag bay kugu dirtaaye kaama dhiciso madaxweyne hadallada aad ku khudbaysay hadallo ka culus oo la oran lahaa ma jiraan waxaad ku dhawaaqday kelmado dagaal oo duulaan hubaysan soo dejin karay laakiin nasiib darro diyaar garowgeedii kaama muuqdo Ethiopia waxa u dhiman oo kaliya waa inay lugaha soo dhigto xeebaha Soomaaliya oo ciidan iyo cududba keento intaan ogahayna qorshahaas waa u diyaarsan yahay wayna ku dhaqaaqayaan colkuna ka hortag buu ku qurxan yahay dirir ku raadinayo nabad ku taqnaya dirir ku raadinayo nabad ku taqnaya hadugsanina xoogu wax diinta dhaawacaya dagatay maante yan loo kala dambayn mudane madaxweyne waxaan hawada kuu soo marinayaa tilaabooyinkan oo dhammaantood ka hortag ah kow Ethiopia si buuxda ugu jar xiriirka diblomaasi sidaana xiriirku ugu jarnaado ilaa ay ka noqonayso heshiiska aan dhaqangalka ahayn ee ay la gashay maamulka aan sharciga ahayn laba ciidanka Ethiopia ee dalka jooga kuwooda admis ka mid ah iyo kuwa aan ka mid ka ahaynba ka saar dalka muddo ay dalka uga baxaan u qabo haddii ay ka bixi waayaanna haloo aqoonsado ciidamo gumaysi ku jooga dalka muddadaas loo qabtay inay dalka uga baxaan waxaad raadsataa dalkii buuxin lahaa goobahaasi ay ka baxayaan wayna jiraan wadamo diyaar u ah inay booskaasi buuxiyaan saddex dawladda inay qaado olole diblomaasiyadeed oo dalalka Afrika ku soo wareega oo ka dhaadhiciya in midowga Afrika xarunteeda laga raro Addis Ababa bacdama ay ku xadgudubtay xeerarkii u degsanaa ururka afar in hawada Soomaaliya laga xiro duulimaadyada diyaaradaha laga leeyahay ama ka diiwaan gashan dalka Ethiopia iyo shan dalalka aan walaalaha nahay sida Turkiga Eritrea iyo Masar waxaad la soo gashaa iskaashi difaac waxaadna dalka ka siisaa saldhigyo military si uga qayb noqdaan amniga gobolka amniga badda cas iyo gacanka cadmeed ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabay agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin waxaan idin akhrinaya anigoo ah Maxamed Xaaji hadal Saba TV dunida hoos u eego kan xaqiisa doonan dacar magabiyo wallahi waqtufe dacar magabiyo wallahi waqtufe hadugsanina xoogo wax dinta dhaawacaya jannada dagatay maante yan loo kala dambeeyo